dadka qaar ayaa jira markaad bandhig ugu yeedhayso aad ku dalbanayso lacag, halka qaarna aad kaadhka casumaaddu keliya siinayso. Ronaldo waa danayste weyn, uma dhaqaaqo meel aanu ka helayn maalgelin, waana sababta keentay inuu ku faraxsanaado joogitaanka Sacuudiga. waayo tallaabo walba oo uu qaadayaa waa lacag. habeenkii waxa uu ka qayb galaa goobaha lagu soo bandhigo ciyaaraha feedhka, wuxuu saacaddiiba qaataa lacaga aad u badan, balse markuu goobta tago iskama taageero cid walba oo garoonka ku jirta. habeenkaa cidda uu la jiraa way cad tahay. xalay waxa uu taageero u ahaa wiilka muslimka ah ee Shaara. wiilkani waxa uu jiraa 30 sanno, wuxuuna saaxiib dhow la yahay Khabiib. Shaara sida idiin muuqata ishiisa midigta ayaa midabkii ka tegey, isagoo ku dhaawacmay taabaruu ku jiray sannaddii 2016. waxa la ogaaday Cristiano dadka uu taageerayo oo dhani inay yihiin kuwa isaga u khaasa, wuxuuna ku xushaa dhaqanka qofka sida inaanu jidhkiisa waxba ku xardhin. oo Ronaldo waxa uu aad u neceb yahay dadka isticmaala taatuuga. waxa la sheegay inuu goor walba carruurtiisa kala dardaarmo 2 arrin: inay ka dheeraadaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyo taatuuga lagu xardho jidhka. sababta ugu weyni waa inuu aabbihii ku waayay balwadda. qofka taatuuga isticmaalayna inta badan dhiigga uma shubi karo walaalkii, waana sababta ugu weyn ee Cristiano uu ku neceb yahay labadan caado. Easy, how are you? Good?